ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo Al-Shabaab ayaa saaka waaberigii isku farsaaray deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo. weerarkan oo ay la horeeyeen Al-Shabaab ayaa socday muddo taasoo markii dambe keentay in ciidamo gurmad ah ay ka baxaan magaalada Kismaayo. Sanguuni oo 50 kilomitir waqooyi kaga beegan Kismaayo ayaa ah mid ka mid ah saldhigyada ugu weyn ay ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya joogaan. dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale ay ugu dagaalameen Al-Shabaab iyo Jubbaland deegaankan, waxaase dad badani ay isweydiinayaan sababta Jubbaland ay u qorsheyn laadahay xal ku aadan ka hortagga weerarada Al-Shabaab ee Sanguuni. inkastoo warbaahinta loo diiday inay gasho cisbitaalka, waxaa jira dhaawacyo qaarkood ay culus yihiin oo la keenay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. warbaahinta taabacsan Al-Shabaab ayaa sheegtay in xoogagga ururkaasi ay la wareegeen saldhigga isla markaana ay halkaa ku qabsadeen hub iyo saanad ciidan. dhinaca kale, saraakiil ka tirsan Jubbaland ayaa gaadhay deegaanka Baarsanguuni waxaana ay booqanayaan goobihii saaka lagu dagaalamay, taasoo ka dhigan in Jubbaland ay imika gacanta ku haysa deegaanka. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Jubbaland uu ku dhawaaqay guluf ka dhan ah Al-Shabaab, isagoona abaabul ciidan u tagay deegaano ka tirsan Jubbada Hoose oo ay ka mid yihiin Afmadow iyo Doobley oo imika uu ku sugan yahay. Bashiir Maxamed Daahir, Goobjoog, Kismaayo.